muuqaalkaas marka aad aragteen maxaa tallaabaa oo aad qaadeen والله runtii horta mar labaadan ku celina aad iyo aad baan uga xumaanay ficilkaas wuxuu ahaa ficil oo naxdin leh bini'aadanimada ka baxsan wax la aqbali karana maaha wixii ugu horreeyay ee tilaabo ah ee ku habboonna waxay ahayd inaan marka hore xaqiijiyo sida ay wax u dhaceen iyo qaabka ay ahaayeen kadibna aan gaaro ciddii mas'uuliyadda qaadi lahayd maadaama gaariga Amazon uu ahaa in la helo isla xisaabtan dhansa taas ayaan tilaabada ku wada qaaday dadkii gaariga saarnaa xaaladoodu waa sidee hadda waa mahadsan tahay alxamdulillah sida uu naloo soo sheegay xaaladooda hadda way fiican tahay laakiin dee qof intaa ku dhacday xitaa haddii aysan dhaawac gaarin ama haddii wax gaarin maskaxiyan qof wax weyn baa gaaray waa xaqiiqtaas marka aan hanti keliya maaha laakiin qofka maskaxiisa xataa haddii jirkiisa kore aysan wax u gaarin maskaxiisa qofka oo wixii saas bini'aadanimada ka baxsanaa dhacay wax saxan maaha laakiin waa la xiriira Amisom jawaab degdeg ayay ka bixin doonaan ummadana waa loo sheegi doonaa insha Allah marka ay shilal ku dhacaan dadka caadiga ah waxaa qaada kiisaskaas ciidanka taraafikada Amisom marka ay shil saan oo kala galaan yaa qaada kiisaskooda waad mahadsantahay maalin dhaweetay markii shirka aan galeynay oo aan isu imaanayna ayaan ka wada hadalnay in la sameeyo qorshe cad ee ku aadan shilalkan soo noqnoqday ee magaalada Muqdisho aniga ka duq magaalo ahaan dadka ayaan matalaa dhib kasta oo dadka loo geysto waxaan ahay codkooda waa inaan ka dhiidhiyaa waa inaan xaqiijiyaa inaysan soo laaban saa darteed baan ku heshiinay in la sameeyo isla xisaabtan dhab ah dabcan bini'aadanku shil wuu dhici karaa laakiin in la helo qof in lala xisaabtamo mar alla markuu dhaco waxyaaba bini'aadan ka baxsan wax la aqbali kara maaha dad badan ayaa aad uga carooday markii ay arrinkan arkeen maxaad ku qancinaysaa waxaan runtii ku qancinayaa waa marka hore wax naxdin leh wax bini'aadanimada ka baxsan oo aniga shakhsiyan i taabatay muwaadin kastana way taabanaysaa dadka muqdishaawiga ah waxaan leeyahay runtii annagu idinkaan idin taagannahay codkiinna baan nahay waxaan xaqiijinaynaa la xisaabtan dhab ah in ummadda aan jawaab degdega ee Amisom ay ka siiso falkii shala dhacay taas ayaan dadku sheegaya